now runtu waxay tahay ra'iisul wasaare oo aan la qarin karin tub baan ku taaganahay tubahaana waxa noogu madaxweynaheena iyo ra'iisul wasaare adiga oo tubaha noo jideeyay korjoogteeda iyo gacan hayntaada iyo toosintaada iyo ka soo duldhacaaga xafiisyadayada ya runtii waxa weeyaan waxyaalaha aan ku socono ay ka mid yihiin aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa adiga iyo madaxweynaha iyo dawladda inteeda kale aan wada shaqaynaba runtii waxay halkaan maanta ka gaadhnay waxa weeye ra'iisul wasaare waa wax aan wada gaadhnay weeye dad fara badan ayaa gacan ku lahaa oo xildhibaanadu ka mid yihiin oo wasiirada kale ka mid yihiin hanti dhowru ka mid yahay iyo wasaaradaha qaybahooda kala duwan oo taayadu ka mid tahay ayaa horta halkaan kusoo gaadhnay laakiin fare kama qodna wax badan baa noo hadhay oo aan doonayna inaan samayno now xaqiiqada waxay tahay ra'iisul wasaare waddadaa aan soo haynay meelo bay leedahay halmuceediyaa bay leedahay 3 biloodba marbaa dadka kan imtixaan laga qaada adiguna aad noogu madaxtooda ka waraysa waxa weeyaan March iyo June iyo September iyo December iyo March next year sidii inaan yaro iskuul ku jira ayaana nagu bil walba ilaashanaa bil walba inaan yaro iskuul ku jira saanahay baan ilaashanaa waana imtixaan ku jira weey bishan maxaa soo socda midterm exam baan idhaa ya markaasaan habeenkii soo jeednaayo baabkoon cunaayo sida Amerikaanka ya aan isku soo jeednaa imtixaanka yaga xaqiiqadu waxay tahay markii maanta 15 bisha September aan isugu tagnay Nairobi madaxweyne prime minister hadii aad arki lahayd dadka meesha ka soo qayb galay xagga ay ka soo qayb galay oo dhowr iyo 20 oo wasaarado iyo wakaalada central bank cidulba ka socda oo qof waliba diyaar yahay su'aashiisa halka afooda ka soo taagantahay leena habeen hore dhama ka wada shaqeynayni oo maalintii hore ka wada shaqeynayni oo nin walba xisaabta ansarkeedu garanaya waan idhi adigu taa ka hadal adna taa ka wariya taa adu ka taa ka nin walba wuxuu loogu gabadh walba wuxuu loogu tala galay ya ay ka shaqaysay xaqiiqadu waxay tahay ra'iisul wasaare IM ku niman qosla ma aha cid walba way taqaanaa and I can say that in English everybody knows nimankaasi niman qosla ma aha waa niman factual way waxba isku ogtihiin 1+1 can never be anything else but 2 ya xaqiiqadu waxay tahay inay dhahdeen wixii June laydinka baahnaa waa dhamayseen waliba waxba ku darteen wixii September laydinka baahnaa oo 5 maalmood ka hadhay waa ka soo baxdeen xaqiiqa weeyna say dhahdeen wixii December in badan baad qabateen inay yiraahdeen way qoreen iyaga qoray ya inay yiraahdeen wixii March laydinka baahnaana jidkii fiicnaana waa ku taagantiin waxyaalaha qaarna waaba qabateen marka waxaan anagu horta soo noqonay anagu aad u faanfaansan oo mustareexa ayaan soo noqon laakiin haddana waxaa runtu tahay madax prime minister wax weyn baan noo haray now waxaan maanta iibinaynaa ra'iisul wasaare waxa weeye waddankan ammaanadii baa ka dhimatay sidaad adiguba tiraahdo ammaanadii ayaa ka dhimatay dawladda in la aamino wax laynagu aamino inay dadkeenu ina aaminaan baa dhimatay waxaan markaa aan marti kaagana kugu daba soconnaa arrintaada ha layna aamino waxaa lagu aaminayaa sheekhaa yidhi shacali wixii lagu dhiibo in lagu aamino ama qowl ha lagu dhiibo ama maaliyad ha lagu dhiibo ha lagugu aamino dabeetana waa lagu sii aamini xaqiiqada saddexaad waxay tahay ra'iisul wasaare maanta World Banku 140 milyan oo dollar inay ansixiyaan oo guud 18 baarlamaankooda boardkooda ansixiyay 80 baarlamaankooda ansixiyay 40 imika lagu jiro oo appraisalkii la wado 20 kan la appraisalkoodii lagu jiro laakiin la isla gartay inta Soomaalida la siiyo sababtu waxay tahay waxa weeye aaminaada ayay tahay waa aaminaada xaqiiqada waxay tahay lacagahaas ka imanaya institution-kan isna naqale ayda la yiraahdo waa markii ugu horeysay wadan arrears ku jira ama deyn ku jira meesha daaqada la yiraahdo meesha World Bank daaqadaha lacag laga siiyo dad arrears ku jira waa markii ugu horeysay way marka really waxaan ku faraxsanahay bay tahay laakiin fari kama qodna waxa kale oo xaqiiqadu tahay waxa weeye in EU-da ayadna waa markii ugu horeysay oo miisaaniyad kab loogu sameeyo wadan arrears ku jira ya miisaaniyad mashruuc waa lagu sameeyo mashruuc meesha qotay ku xiran yahay wadada samaysu ku xiran yahay lacagta dabada haysa laakiin lacag la soo qaado miisaaniyad lagu dhex daro waa markii ugu horeysay way
sababtu waxay tahay marka waxa weeye hoggaanka toosan runtii ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo aaminaadda wixii lanagu aaminay aan sidii lanoogu aaminay ka soo baxnay waxaan ku soo gabagabeynayaa waxa weeye aaminaadda in aan sii wadno ayaa loo baahaya waxa ka sii qaalisantaa in la yidhi lacagaha aan idin siinayno systemkiinaan soo marinayna ma dhicin ya laadhay systemkiinaan soo marinaynaa accountskiinaan ku kalsoonnay macnaheedu wey accountskiina dadka ka shaqeeya systemkiina sidaa u soo fal celisaan waa ku kalsoonnahay yani waxaa jira dawlado waaweyn today oo aan arrintaa weli haynin ayaa jira waan tala galsannahay ra'iisul wasaare heesay halkan laga qaaday mid baan kusoo qabanaya waxaa ku jirtay dheeraad nin doonow dhaqankii xumaa iyo adoo haanta dhabaqsaday ama dhiilka heensaday dhagdhag iyo haddii sacab lagu soo dhoweyn jiray dhaar baa ka taalloo dhici dooni mayso adna teelaha i dhigan ya marka daahfurnaantu taasay iyo calaamad u ah ay ku guntan tahay